tartanka basketballka ee magaalooyinka bariga Afrika ayaa si rasmi ah shalay uga furmay magaalada Nairobi oo tartanka sanadkan martigelinaysa. Tartanka oo sanad kasta la qabto ayaa waxaa sanadkan ku loolamaya magaalooyinka Nairobi, Dar es Salaam, Muqdisho, Kampala iyo Juba. Waxaa sidoo kale ka qayb galaysa magaalada Mombasa kadib markii ay baaqatay kooxdii ka socotay magaalada Kigali ee dalka Rwanda. Kooxda Muqdisho City oo Soomaaliya ka socota ayaa ku bilaabatay xalay guul kadib markii 83-62 ay kaga badisay kooxda Mombasa City. Ciyaarta oo Soomaali badan u soo daawasho tageen ayaa ahayd mid xamaasad sare leh. Wiilasha Muqdisho ciyaarayay ayaa soo bandhigay ciyaar la jeclaystay oo aanan la malaysaneyn. Maamulka iyo macallimiinta hogaaminaya kooxdan ayaa ku qancay bandhiga kooxdooda ee kulankan, waxayna ka rajeynayaan bandhig kale oo dheeraad ah. wiilasha arkayseen maanta ciyaarayna waxay ahaayeen wiilal aad maanta tafo ah, guul fiican ayaan ku guuleysanay oo aad iyo aad u weyn. marka waa rajeynayna insha Allah ciyaaraha soo socdo birita ugu soo horeyso aan la ciyaari doono Juba in aan guuleysan doono hadoo la yiraahdo. Rajada ka qabtaan intee la egtahay inaa meel fiican ka gaartaan tartanka. dabcan tartankan marar badan ayaan ka soo qayb galnay, guulo waa ka keeni weynay, laakiin sanadkan insha Allah oo soo tawaabashaysanay waan rajadeena waa inaan koob ka qaadno insha Allah hadoo la yiraahdo. waan rajeynayna insha Allah goolkan waxa waaye inaan kulli badano. This first game is good, like it's goalkan maaha. Goalkan is to finish number 1. ciyaartoyda ayaa aaminsan in ay guulo kala gaari karaan isla markaana tartanka ay ku guuleysan karaan sanadkan marka la fiiriyo qaabka ay u soo diyaar garoobeen. alxamdulillah maanta waa raynay, dadka Soomaaliya aad u faraxsan yahay inay maanta noo soo imaaneen. anagana alxamdulillah maxaa rajeynaysan kulamada soo socda. ana maxaa rajeynaa dad walba inay biri imaadaan, inay biri haddana soo daawadaan. maxaa la dhaceynaa tiimka la dhaho Juba waa South Sudan. tiimka hadda u baxnay anaga ka raynay Mombasa South Sudan biri shalay ka raayeen. soo biri imaada dartiin inoo daawada insha Allah. qaar ka tirsan bahweynta isboortiga Soomaalida ee ku nool Nairobi, jaaliyadda isboortiga Soomaalida Kenya, maxalliliin isboorti iyo dadweyne kale oo fara badan ayaa ka qayb galay daawashada ciyaarta. waxay dhammaantood u riyaaqeen bandhiga wiilasha Muqdisho City ay kulankan muujiyeen. intii waa ciyaar waxay soo saareen aan ku faraxnay oo ah furfuran. maantana ka guuleysteen kooxda National Kenya ahaadna Coast ahaana dad dhisan, laakiin waa dhalinyarta Soomaaliya waxayna ahaayeen run ahaantii dad aan aad iyo aad ugu faraxnay. waxaan u rajaynaynaa geemamka kale soo socda in Ilaahay guul ka siiyo. caawa oo aan meeshan isku imaanay stadium waxyaabaha aan la kulanay Ibrahim waxaa kamid ah in maxalla teamkan oo basketball team saan oo kale u dheelaayo oo muddo iigu dambeysay. maxaa la yiraahdaa waliba waxaan la yaabay Ibrahim in mental ay lose gareyn waayaan. bodigooda waa fiican yahay, qaabka coachku isku badbadala ciyaartooyda, qaarka gadaalka imaanaya farsamada isku dhiibkooda, defensigooda absolutely waa la dhacay. waa runtii caawa dareenkeen aad u kacsan yahay. bil Ramadaan lagu jiray ciyaaryahanadu Soomaan bacda afur ciyaareen, ciyaar aad wanaagsan soo bandhigeen. xitaa waxay soo jiiteen taageerayaashii ka soo horjeeda ee kooxda Mombasa taageerayeen. runtii waxay ahayd ciyaar aad u qurux badan. runtii maaragtay dareenkii shacabkii meeshan joogay aad u qaaday. xataa maaragtay wiilasha Soomaalida qaabka u soo bandhigayeen, qaabka u ciyaarayeen, waxaad moodaa inaysan maaragtay xoog ku ciyaareen, laakiin ay maskaxda ka ciyaarayeen. xataa kuwii ka soo horjeeday oo kale baad moodaa inay aad ugu qireen qaabka u ciyaareen iyo waliba maaragtay sida quruxda badneed ay u soo bandhigeen. wiilal yar bay ahaayeen runtii da'doodu aad ay u yar tahay, laakiin waxaad moodaa inay soo bandhigeen ciyaar aan inaba caadi ahayn. wallahi ciyaarta maanta caadi ma ahayn, taageerayaasha caadi ma ahayn. Soomaalida dareenkooda aad buu u kacsanaa. ciyaarta aad iyo aad looga helay. guul baan u rajeynayaa Soomaaliya si wanaagsan oo wacan next time oo ka guuleysanayna habeen dambe insha Allah duulayra Juba Sudan. ciyaartoydan ayaa badankooda laga soo xulay waqooyiga Amerika iyadoo ay isku soo dubardeen xiriirka kubadda kolayga ama basketballka Soomaaliya iyo guddiga isboortiga gobolka Banaadir. waxaana ay higsigoodu yahay inay koobkan Intercities ama Africa City Challenge ay ku guuleystaan. waxaana kooxda koobka qaadaa ay heli doontaa $6,500 taasoo ah waxyaabaha ay higsanayaan ciyaartoydan Soomaalida oo dhiirigelin ka dalbanaya bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo kuwa ku nool magaalada Nairobi. Ibrahim Gedo Awaale, RTN TV, Yan Stadium.